بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن داوديال meel walba dunida ka joogtaan halkani waa xarunta dhexe ee TV-ga dawladda Jubbaland ee magaalada Kismaayo kuna soo dhawaada barnaamijkii kafadaha ganacsiga oo kamid ah barnaamijyada ka baxa TV-ga dawladda Jubbaland qodobada barnaamijka idinku hayana waxaa kamid ah lacagta shilinka Soomaaliga ayaa qadka ka baxday waxaana guud ahaan dalka ka dhaqan galay lacagta dollarka Mareykanka ka ganacsiga xoolaha nool madaxweynaha wadanka Zimbabwe oo sheegay in la qarameeyay godadka laga qodo dhagaxa qaaliga ah ee Diamond-ka shirkadda Shell oo ka shaqeysa soo saarista iyo baarista saliidda iyo gaaska oo dacwad ka dhana looga soogay dalka Ingiriiska qodobada ayaad ku maqli doontaan iyo qodobo kale oo xiiso leh intaynu ku guda jirnaa barnaamijka kafadaha ganacsiga تضاد كان داود يلو برنامج كسوسو دبردي صونا ساري داهر عبد الله علي وحنا كلا سocon doonta TV-ga dawladda Jubbaland oo diyaar garooba barnaamijka faahfaahsan gorma ayaa kuugu dambeysay wax ku iibsato lacagta shilinka Soomaaliga caruurtaada se dhar mugu soo iibsay dhawaanahan ma gorgorisay shay yaala suuqa mise lagu sheegay qiimihiisa waxay u badan tahay in lagu sheegay inta dollar ee sheegani qiimo ahaan u joogo halkii lagu sheegi lahaa inta shilin ee uu yahay tani waa waxyaabihii laga dhaxlay burburkii dawladda dhexe iyo bangiga dhexe oo aanan lacag soo daabicin in ka badan 20 sano waxaana ay taasi keentay in shilinka Soomaaliga uu meesha ka baxo haddaba si aan wax badan uga ogaano wariyaha kafadaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho حسن محمد أويس أيها كاميرا لا دحقادة قار كميدة دكامة مقالة مقدشو وربحنت أنا وحي عدين كاسينيسا حلقة ومرايا لعاتك شيلنك الصوماليقا كن كوابستيس برشداكو شمونتي وفساكو دعي كن كوابستيس برشداكو شمونتي وفساكو دعي burburkii dagaalkii sokeeye ee dalka kaliya ma saameynin oo kaliya dhismooyinkii dalka balse waxa uu sidoo kale saameyn uu ku yeeshay lacagtii dalka ee shilin Soomaaliga oo hadda kunkii shilin uu yahay midka ugu yar iyo kan ugu weyn iyadoo la ogsoon yahay meesha uu ka taagnaa xilligii nabadda bulshada Soomaaliyeed ayaa muujisay in lacagtan shilin Soomaaliga haddaan la daba qaban uu isagana uu mari doono sidii kuwii hore meeshii ay mareen lacalahdii baalweynta la waayo lacag kaloo bedelaysa ma hayno suuqyada yaa wax ka baayacaya gabadhan waxa ay u soo dukaamaysi tagtay mid ka mid ah carwooyinka ku yaala suuqa degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir balse dollarka ay ku adeeganayso iyo lacagta shilin Soomaaliga ay wadato waxa badan midka dollarka ah magacayga waa Fartuunti Masciid suuqa ayaamahan shilin Soomaaliga ka sii baxayo waxa lagu adeegtaa dollarka inta badan waxaan ku adeegtaa dollarka shilin Soomaaliga ma ku adeegto hadda kana halaas shilin Soomaaliga marka aas ay soo gaar marka shilin Soomaaliga suuqa ma lagu adeegto dollarka la socdo inkastoo sariflayaasha aysan si dhab ah ay kugu sheegi karin lacagtan dalka ka sii dhamaanaysa iyo sida ay u arkaan balse ganacsatada waaweyn ee suuqa ganacsiga ku leh ayaa iyagu waxa ay ku sheegayaan dhibaatada lacagta ay leedahay ee dalka hadii laga waayo shilin Soomaaliga Saciid Diblaawe oo ganacsada ah ayaa isaga arimahaasi ka hadlaya nafta ganacsadahan anaku ma aragnaba shilin Soomaaliga aan ahaan way ku yartahay intan goobtan joogno wax shilin Soomaaliga lagu iibsanayo كل على badan iska jiraan oo hadii bangiga dhexe oo shaqeyneen oo dhabarka ka reexay businesska iyo ganacsiga iyo lacagta iyo waxyaabahaas oo dhan maamulay hadduna shaqeeyeen oo dawlad xawaayte lacag sameynaysa aysan jirin oo controleysa waa dareemi kartaa inay wax walba suuqa si dhamaanayaan wax walba bilaw leeyahay dhamaashana waa leeyahay waxa taas ku sii dara ganacsiga u jeedo dhan iyo businesskan markaan soo iibsayno dollar ku soo iibsana markaan sii gadayna dollar ku iibina wax shilin Soomaali hatta dawladda hatta canshuurta dollar noo qadaa dawladda lafteeda canshuurta dollar noo qadaa wali lama kulmin meel shilin Soomaali wax loo qadaa way yartahay baawarto kale
حتى لفتوda waa loo turaa lacagta inta badan waa loo turaa marka culeys badan iska jira waa nasiib daro in lacagtii dalku lahaay ay si nabad guurayso oo wadanka ka sii baxayso haddana waa dareemi karnaa wax aan wax ka qaban karna maaha waxa dawladda iyo systemka iyo dadka waaweynka oo si bangiyada kale inay isticmaalaan kulli waxay sugay dawlad xog baan sugaysaa sandeen qiyaasayno iyo ganacsatada Soomaalida waaweynka oo istaagta oo ay kuna iska xil saaray si bangiyada kale iyo xawaaladaha kale wiilkan meesha ka adeeganaya waxa la yiraahdaa Saadaq waxa uu qabaa in doolarka qaadistiisa iyo lacagta shilin Soomaaliga hadda ay fududahay in uu qaato doolarka billah magacaygu waa Saadaq Xishiq Ibrahim haddii aan ku xijiyo lacagta shilin Soomaaliga waa lacag aad u fara badan haddii la sarifo marka sida darteed in mobilka lacagta lagu qaato taas ayaa ka fudud marka meel walba aad tagto haddii aad gaar raacaydo haddii aad shaqooyin kale aad qabsanayso xitaa lacagtaada inaad mobilkaada aad ku isticmaasho aad ka tuurato ayaa ka fiican ka fudud haddaba maxay tahay talada ugu dambaysa ee ganacsatada ee ku aadan lacagta shilin Soomaaliga ee dalka ka sii dhamaanaysa magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Mire waxaan ka shaqeeyaa Carwo Dhiblaawe su'aashaad weydiiday haddii aan ka jawaabo ama isku dayo fikirkayga shilin Soomaaliga runtii aad iyo aad u sii burburayaa oo sii baabaayaa inta hadda taalaahi waa in tabcaan ah iyadoo ay u baahneed in la nidaamiyo oo la soo habeeyo la soo sameeyo waxaad moodaa hadda inta yartahay inaynan macnaha aysan waxbana gelin waxa marka aan yacni hay'adaha iyo qolyaha ku shaqada leh waxaan dhihi lahaa aan u soo jeedinayaa in arrintaas xil la iska saaro oo ma garanaysaa dal aan lacag lahayn ma shaqeeyo lacag macnaha dollar dhaqaalaha wadanka inay la sii dumayaan marka waxaan anigu yacni fikirkayga ku soo jeedinayaa lacagtaas in yacni wax laga qabto oo ma garanaysaa si dhaqaalaha wadanka iyo bulshada nolosheeda in badan oo kamid ah waxaad qabtaa inay yacni aysan ka qayb qaadanayn marka waxaan macnaha ku soo jeedinayaa inay yacni arrintaas wax ka qabtaan welina daawadayaal waxaa la socotaan barnaamijkii kafadaha ganacsigooda kaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Kismaayo ee TV-ga dawladda Jubbaland dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalal kale xoolaha ugu badan caalamka una dhoofiya dalalka khariijka Soomaaliya xoolaha ay sida gaarka u dhaqato waxa kamid ah geela ariga iyo lo'da gaar ahaan geela oo xoolaha ugu badan ee Soomaaliya ay dibadda u dhoofiso gobolada Jubbaland waxay ka mid yihiin deegaanada dalkeena Soomaaliya ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan ee ku dhaqan yihiin xoolo dhaqato xiriir ganacsi la wadaaga wadamada Soodimaha aynu leenahay degmada Dobley dhawaan waxa laga hirgeliyay suuq cusub oo loogu talagalay in lagu gado xoolaha ama lagu kala iibsado xoolaha nool suuqan cusub ayaa ka qayb qaadan doona kobaca dhaqaalaha degmada Dobley iyo guud ahaan Jubbaland gudoomiyaha magaalada Dobley ayaa maanta xariga ka jiray suuq cusub oo loogu talagalay in lagu gado xoolaha nool waxaana suuqan hirgelisay hay'ad lagu magacaabo Bakti Kenya oo kamid ah hay'adaha gargaarka ee ka howlgala dalka Kenya oo wax ka qabata deegaanada saaran xuduudaha ay wadaagaan dalkeena Soomaaliya iyo Kenya suuqan maanta la furay ayaa ku yaala meel ka baxsan magaalada Dobley taasi oo loogu talagalay in suuqa xoolaha laga durkiyo magaalada Dobley waxa ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dobley ururka hooyooyinka ururka dhalinyarada dhammaan bulshadeynta degmada Dobley waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan maanta runtii waa maalin farxad inoo ah waa maalin alxamdulillah rabbil caalamiin aan xariga ka jarnay suuqa weyn ee degmada Dobley sida aad ogsoontiin 25 sano ee dawladda Maxamed Siyaad Barre kadib ma jirin suuq caalami ah oo xoolaha lagu kala iibsado dadku waxay xoolaha ku iibsan jireen geedaha hoostooda sida quracda ceelasha meesha u dhaxayso ceelasha degmada Dobley laakiin run ahaantii maanta waxaanu helnay suuq caalami ah suuqaas oo muddo bil ka hor la dhisay insha Allah biidmillahi alkariim wixii maanta ka dambeysana haddii Allah awood la qadaro waxa iman doonaan xoolaha halkaas oo macnaheedu ka bilaaban doono ganacsiga xoolaha ama sida ganacsiga yaryar ee maqaayadaha iyo dukaamada sidaas awgeed maadaama qorraxda ay kulushahay warkeena waan soo gaabinaynaa waxaan ku soo gaabinaynaa dhammaan dadka reer Dobley meel ay joogaanba ka soo qayb galaan suuqa xoolaha ee degmada Dobley
madaxa mashaariicda hay'adda Bakti Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka warbixiyay muddadii uu socday suuqan maanta la daahfuray. History waxay u qaabilsan tahay arrimaha xuduudaha kaalmeynta dadka ku nool isku soo dhaweyntooda iyo maaragtay wax wada qabsigooda ay ku shaqo leedahay xad aad u dheer bayna ka shaqeysaa mashruucan haddaan dib u soo galo mashruucan waa suuqa xoolaha oo loogu talagalay inuu ummadda maaragtay baahideeda ka kaalmeeyo baahida waa suuqii hore oo yaraa magaalada ku dhex yaalay hataa dadka waxay ku dib qabeen maaragtay geela oo kale sida magaalada loo dhex geeyo marka waxaan u aragnay inaan suuq fiican oo baahidooda dabooli karo meesha loogu dhiso oo masquulo leh biyo loo soo xiriirin doono hadduu ilaahay yiraaho meel ay hataa maaragtay cashuurta hataa ay maaragtay dawladda iyo ku kala qaataan in loo sameeyo marka waxaan filahaynaa suuqan inuu meel weyn ka uga doono insha Allah baahidii suuqan cusub ee maanta xariga laga jaray ayaa waxaa la filayaa inuu wax badan uu ka bedeli doono dhanka suuqgeynta xoolaha ee magaalada Dobley iyo deegaanada ku dhow. shirkadda Shell oo ka shaqeysa soo saarista iyo baarista saliidda iyo shidaalka oo fadhigeedu yahay dalka Holland ayaa dacwad la xiriirta wasaqeyn hareeraha webiga Niger Delta ee dalka Nigeria looga soo oogay dalka Ingiriiska maxkamad ku taala. shirkadda Shell waa shirkad caalami ah waxaana la aasaasay 1907 waxaana xarumo kala duwan ay ku leedahay caalamka oo dhan intiisa badan. haddaba warbixin la xiriirta arrintaasi waxay noo diyaariyay Daahir Cabdulla Cali Daahir Junior. labada qowmiyadood ee wadada gobolka qaniga ku ah saliidda ee dalka Nigeria ayaa dacwad ka gudbiyay shirkadda soo saarta saliidda ee caalamiga ah ee Shell iyagoo ku eedeeyay in shirkadaasi ay saliid ku qubtay webiga Niger Delta. dacwadan ayaa la xiriirta eedeymo ka dhan Shell oo ay ka soo jeediyeen qowmiyadaha isugu jira beeraleyda iyo kalluumaysatada taasoo soo jiitamaysay ilaa sanooyin badan waxaana dhibaato ku haya dhuumaha saliidda qaada ee shirkadda Shell waaxdeeda Nigeria gacanta ku hayso. laanta qareennada UK ee lagu magacaabo Leyday oo matalaysa qowmiyadaha dacwadda ku soo oogay Shell qaybteeda Nigeria ayaa dacwadda u gudbisay maxkamad ku taala London. qowmiyadda Ogale ayaa ku doodaysa in ay shirkadda bixiso magdhowga saliidda ku qabatay deegaanka oo ay sidoo kale qaadato mas'uuliyadda ah inay ka nadiifiso saliiddaasi. qowmiyaddan degta dooxada webiga Niger ayaa tiro ahaan gaaraysa 40,000 oo qof kuwaasoo badankood ah beeraley iyo kalluumaysato. dacwaddan soo socotay ilaa 1989 ayay dadweynaha ku tilmaameen xaaladii ay ku sugnaayeen inay la micno ahayd in loo diiday cabitaanka biyo nadiif ah iyo inay beertaan ama ay ka kalluumaystaan jiinka webiga. tani ayaa sidoo kale la xiriirta warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International bishii November 2015 ayaa lagu sheegay inay shirkadda Shell ku doodayso inay nadiifisay deegaanka ay saliidda ku qabatay. haddana waxaa jira 4 meel oo wasaqaysan taasna waxay ka baxsan tahay anshaxa sharciyada xuquuqda aadanaha iyo deegaankaba. qowmiyadda Bile oo badankood ah kalluumaysato ayaa sidoo kale dacwadda ku soo oogay shirkadda caalamiga ah ee Shell waxayna ku eedeeyeen in shirkadda ay xamili karin inay ka difaacdo khatarta qubashada saliidda oo ay sabab u tahay dhuumaha shidaalka qaada oo aan la daryeelin lana dayactirin. Shell believe in values, honesty, integrity and respect for people. Shell ayaa dacwaddan London looga soo oogay ku tilmaamtay mid lagu degdegay waxaana ay sheegtay in loo baahnaa inay maxkamad Nigeria ku taala ay ka dhageysato dacwadda iyagoo markaas diyaar u ah inay xaliyaan eedeymaha loo haysto. shirkadda ayaa sheegtay in bartamihii 2015 ee qorshe 3 geesood ah oo ku aadan nadiifinta deegaanka la saxiixatay dawladda Nigeria, hay'adda deegaanka adduunka UNEP iyo wakiilo ka socda bulshada degan Niger Delta kuwa oo ay isku raaceen in 18 bilood gudahood lagu soo afjaro nadiifinta wasaqda. sidoo kale Shell ayaa ku andacoonaysa inay jiraan tuugo jabsata dhuumaha qaada saliidda ceyriinka ah isla markaana qarxiyo si ay ugu warshadeystaan guryahooda taasoo qayb ka ah dhibaataynta deegaanka waxayna ku doodaysaa in la soo qabqabto dadka falalka noocaas sameeya. shirkadda Shell oo war qoraal ka soo saartay dacwadda lagu soo oogay ayaa sheegtay in qowmiyadaha Bile iyo Ogale ay qayb ka yihiin kuwa falalka xatooyada ah ku sameeya dhuumaha saliidda qaada loona baahan yahay in la xisaabtamo dhankooda. London High Court rule on events in the faraway Niger Delta. Communities whose land has been ruined are hoping for millions of dollars in compensation. shirkadda Rwanda Airline oo la aasaasay sanadii 2002 oo dulmaadkii ugu horreeyay ku bilowday qaab maxalli ah ayaa hadda waxa ay maraysaa dulimaadyo caalami ah oo ay ku tagto caasimadaha fogfog ee adduunka waxaana shirkaddan lagu tiriyaa inay ka mid tahay shirkadaha soo koraya. dhanka kale shirkadda Ethiopian Airline waxaa la aasaasay
1945 waxaanay ka mid tahay shirkadaha duulimaadyada ugu faca weyn qaaradda Afrika waxaana ay u duushaa 89 masaafo oo adduunka oo dhan ah. haddaba labada shirkadood iyo labada dawladood Rwanda iyo Ethiopia waxay kala saxdeen iskaashi dhanka duulimaadyada ah. heshiiska ay gaareen labada dhinac ayaa ka qayb qaadanaya kobaca dhaqaalaha ee bariga Afrika gaar ahaan labada dal. mar kale Daahir Cabdulle ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. heshiiskani oo ah kii ugu horeeyay oo noociisa ah ayaa waxa uu dhaxmaray labada shirkadood ee duulimaad ee ugu kobac badan qaaradda Afrika ee kala ah Rwanda Air iyo Ethiopian Airlines. waxaana heshiiskoodu uu ka dhignaan karaa kobac kale oo cirka isku sii shareera. heshiiska oo dhawaan qalinka lagu duugay ayaa waxa uu dhigayaa in labada shirkadood ay si aanan hakad lahayn uga kala shaqeyn karaan labada dal, isla markaasina ay ku tagi karaan ilaa inta duulimaad ay doonayaan. heshiiskani oo loo cuskanayo cahdiga shanaad ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa gaadiidka hawada ku goosha ayaa waxa uu macnihiisu yahay in diyaaradda ay rakaab ka qaadi karto dalkeeda, geyn karto dal kale iyo sidaas rogeed. waxyaabaha heshiiskani uu xusay waxaa ka mid ah canshuur dhaaf, isweydaarsiga tababarada iyo weliba farsamooyinka injineeriyadda ee labada shirkadood sida cilad bixinta diyaaradaha iyo wadaagista xogaha muhiimka ah ee dhanka sayladaha. xog isweydaarsiga waxaa ka mid ah xagga raadarada iyo macluumaadka kale ee xagga duulista hawada sare. dowladda Rwanda ayaa ilaa hadda heshiiskani oo kale la saxiixatay dalal gaaraya ilaa 37 dal oo isugu jira Afrika iyo kuwa kaleba, waxaana aad u sii kordhiya macaashka ay sameynayso shirkadani Rwanda Air. Rwanda Air oo la aasaasay sanadii 2002 kuna bilowday duulimaadyo maxalli ah ayaa waxa ay hadda maraysaa diyaarad caalami ah oo duulimaadyo ku tagta caasimado fogfog oo adduunka. Rwanda Air oo la aasaasay sanadii 2002 kuna bilowday duulimaadyo maxalli ah ayaa waxa ay hadda maraysaa diyaarad caalami ah oo duulimaadyo ku tagta caasimadaha fogfog ee adduunka, waxaana lagu tiriyaa inay soo korayso. dhanka Ethiopia Airlines waxa ay noqotay kuwa ugu kororka badan Afrika, iyada oo xitaa qadka kala sii baxaysa shirkado horay suuqa u haystay sida Kenya Airways oo kale. waxaa la aasaasay sanadkii 1945, sidaas darteed waxa ay ka mid tahay kuwa ugu faca weyn Afrika, waxayna u duushaa ilaa 89 masaafo oo adduunka ka mid ah. heshiiskani ayaa dhanka kale muhiim u ah kobaca dhaqaalaha bariga Afrika, waxaana xusid mudan in dalka Rwanda uu yahay dal ka soo baxay dagaal sokeeye. dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee uu sameynayna uu yahay mid lagu dayan karo. madaxweynaha waddanka Zimbabwe ayaa sheegay in la qarameynayo godadka laga qodo dhagxaanta qaaliga ah ee diamond-ka. Zimbabwe waxay horay ay u qarameysay beeraha iyo meelaha kale, waxaana soo wajahay dhaqaale burbur dalkaasi, balse warbixinta soo socota waxaanu ku eegaynaa waxay kaga duwan tahay qarameynta godadka laga qodo dhagxaanta qaaliga ah ee diamond-ka. waxaana warbixintan inoo eegaya wariyahayaga Cabdinaasir Axmed Sheekh. dowladda Zimbabwe ayaa markii ugu horeysay waxa ay shaacisay in la qarameynayo godadka laga qodo dhagxaanta qaaliga ah gaar ahaan diamond-ka oo ka mid ah hodantinimada dalkaasi faqiirka ah. madaxweynaha gabowga ee Zimbabwe Robert Mugabe oo bixiyay wareysi dhif iyo naadir ah oo uu siiyay idaacadda qaranka ee la iska arko ee dalkaasi ayaa shirkadaha qoda diamond-ka ku eedeeyay in ay boobaan hantida dalkaasi, isla markaasina dadka reer Zimbabwe ay wax badan ka faa'iidin diamond-ka. ma jiraan wax lacag ah oo aan ka helnay diamond-ka, dadkeena ma aysan arag, waxbana kama oga wax socda. waxa jira isdaba marin badan iyo xatooyo. shirkadaha diamond-ka qodana waxa kaliya oo aan ku tilmaami karaa kuwa si burcadnimo ah dalkaasi uga shaqeysta, ayuu yiri Mugabe. bishii hore wasiirka macdanta dalkaasi Walter Jidankwa ayaa sheegay in dowladda ay la wareegtay godad diamond-ka laga qodo kadib markii uu shatigii ka dhacay shirkadihii howsha waday. madaxweyne Mugabe ayaa sheegay in 2 bilyan oo dollar oo kaliya ay ku soo xarooto sanduuqa dowladda, halka caadi ahaan lacagta ka soo xarooto diamond-ka ay gaarayso ilaa 15 bilyan oo dollar sida uu sheegay, balse uusan sheegin xilliga ay lacagtaasi soo xarootay. khubaro xagga dhaqaalaha ayaa saadaaliyay in qarameynta godadka diamond-ka ay horseedi karto hoos u dhac ku yimaada maalgashi lagu sameeyo dalkaasi. dhaqaalaha Zimbabwe waxa horay u dhaawacay sandareerada dadka dalka u dhashay la siiyo, taasi oo shirkadaha shisheeye ay ku qasban yihiin in 51% ay siiyaan dadka muwaadiniinta ah
iyo shirkadahooda ilaa 6 shirkadood oo dheemanka qoda ayaa ka shaqeeya Zimbabwe laakiin kala bar waxa shirkadahani saami ku leh shirkado ay dawladda leedahay sanadii 2006 ayaa si rasmi ah Zimbabwe looga helay dheemanka waxaana uu hadda ka mid yahay 10 dal ee ugu soo saarka badan dhagxaantani qaaliga sanadii la soo dhaafay oo kaliyana Zimbabwe waxa ay soo saartay 660,000 oo qalbac oo dheeman ah taariikh ahaan dheemanka iyo waliba dhagxaanta kale ee qaaliga waxa ay dalal badan oo Afrika u horseeday xasarado iyo dagaalo dad badan ay ku dhinteen waxaana xitaa laga jilay filimka caanka ah ee lagu magacaabo Blood Diamond ama dheemanka dhiigga uu ka daayo kaasi oo lagu muujiyay sida shirkadaha shisheeye iyo wadamada kale ay ugu baratamayaan boobka dhagxaantani You will find it for me. My son! Where is my son? iyagoo adeegsanaya ciidamo marar badan geystay xasuuq waxa dalalkaasi ka mid ah Angola Zimbabwe lafteeda iyo kuwa kale dhibaatooyinka qaarne wali waa kuwa laga soo kaban laayahay intii u dhaxaysay sanadii 2007 iyo sanadii 2009 waxa dunida oo dhan laga mamnuucay iibsiga iyo dhoofka dheemanka ka yimaada Zimbabwe kadib markii ay soo shaac baxeen warar sheegaya in shaqaale badan lagu laayay ama lagu jirdilay godadka macdanta laga qodo laguna xadgudbay xuquuqdooda aadanaha ee asaasiga ah gudaha daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii kafadaha ganacsiga oo kala socoteen TV-ga dawladda Jubbaland xarunta dhexe ee magaalada Kismaayo barnaamijkan dhanka farsamada iyo kaamirada waxa gacan weyn ka geystay Cumar Yaasiin Cumar waxna barnaamijka soo saaray maadaha ka gaadhay Daahir Cabdulle Ali inta barnaamijka mid lamid ah aan ku kulmin doono toddobaadka xiga waxaan kaga tagnaa dhamaantiin isku duban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.